runtii waxa weeyaan waa maalin taariikhi ah waa munaasabad bilan waxaan aad iyo aad u hambalyeynaya aadna u soo dhaweynaya xildhibaanada afarta xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada Oodweyne ee markay ururiyeen fikirkoodii fiiro dheer markii ay galeen markii ay ka tashadeen marxaladda siyaasadda maanta Soomaaliland marayso maskaxdooda ay tuujiyeen ay u muuqatay meesha kaliya maanta la isku halayn karo in la geli karo guusha qarankani gundhiga waxa ay tahay xisbiga kulmiye maskaxdooda iyo garaadkooda waan ku hambalyeynaya waxaan leeyahay waa siibteen halkii ay hayd waxaan mar labaad leeyahay reerku markuu guurayo sahan buu dirsadaa reer sahan la'aan ma guuro sahankii ay idin qaadeen saadaashii guusha ay idin sahankii ku soo afmeerteen saadaashii guusha waa xisbi xaakimka kulmiye golayaasha deegaanka doorasho la qabto 15 bishii 12 ee 2002 markii aynu asxaabta qaranka asaasnay ayay inoogu horeysay xisbiga kulmiyiintu talada dalkan hayay wuxuu ku guuleystay doorashadii qabsoontay 2012 dabayaaqadeedii ee golayaasha deegaanka inuu dalka mar labaad u qabto iyadoo muddo dhaaf ay golihii hore ay haayeen oo 10 sano ay fadhiyeen kulmiye lixjalada uu qabay in dalka golayaal deegaan oo majraa magaalooyinka qabtaa inay yimaadaan ayuu doorashada geed dheer iyo geed gaaban u koray dhammaan golayaasha deegaanka Soomaaliland midhahoodana maanta xisbiga kulmiyaale inay maanta markaa garataan inay xisbiga kulmiye ku soo biirtaan waa guul weyn oo idin gaadheen xisbiga kulmiye wuxuu xurmo qadarin iyo qiimeyn u hayaa dhammaan xildhibaanada qaranka khaasatan xildhibaanada golayaasha deegaanka waayo waa mas'uuliyiintii degmooyinka marka isagoo xisbigu aad idin soo dhaweynaya xaflado mataanaysan idin qabtaan oo way ka go'an tahay degmadii Oodweyne gobolka Daadmareerna biidmillaahi kariim sida laga dhawaajiyay adinkii xildhibaanada kaleba waan idinku hambalyeynaa xafladaas dambe